halkan waa dugsiga 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa uu dhacaa duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. hadda waxa ku xareysan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybtooda fadhigoodu yahay Jubbaland. mas'uuliyiin iskugu jirtay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo shalay soo gaaray magaalada Kismaayo. madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo saraakiil ciidan ayaa maanta kormeeray dugsiga uu tababarka uga socday ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. mas'uuliyiintani ayaa kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay xarada waxa ayna la hadleen ciidamada uu tababarka halkaasi uga socday. Cabdullaahi Caynta oo kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ugu horeyn ciidanka ugu hambaliyay sida ay ugu dhabar adeegeen tababarka waxa uuna booriyay in ay ka dhabeeyaan wixii ay ku dhaarteen. marka hore assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. saakay waxay ahayd halkan inuu yimaado taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed arrimo oo ka jira xaalado ka jira halkaas awgood ayuu u baaqday. أنا وكيل أهان لي صوت دري أنا كنا وحام فيلا مركي هو يا أركتان معها ومركي اللواد بس مركي سدحات أنا كإمانة عيدا كان هو صور استاجايو عيدا كان وأجنا هاي حالة دي سنة والله صعنا تري سنة والله صعنا وعقبت كي سنة والله صعنا أنا كحمر جوجنا وحي دبعت أجرا وحي علّاء وحي دمان دمسترو باهن madaxdan kala hadlayna waan la soo dhameystiri doonaa insha Allah taala. madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo bogaadiyay dulqaadkii ay muujiyeen ciidamada uu tababarka u socday ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in ciidanku uu helo xuquuqda ka maqan. sallallahu alayhi sayyidina wa ala sahbihi ajma'in. waan soo dhaweynayna aad baan ugu faraxsanahay ra'iisul wasaare Maxamed Cumar Carte Qaalib inuu nagala qayb galo maanta ciidanka uu soo booqdo. waxaan u malaynayaa ra'iisul wasaare arkaysa maqlaysa saaka ciidankii SNA way korfeen xoogga dalka Soomaaliyeed haday dayac ka muuqato iyo haday dheef ka muuqato haday waxba ka muuqatana indhiinaad ku arkaysaa. waxa la rabaana waxay tahay in ciidankaasina xuquuqda uu leeyahayna uu helo oo ay ugu horeyso direyskiisii iyo qalabkiisii wixii loo dhameystiro. waan u mahadcelinayaa iyaga ardayda iyo macallimiintoodaba iyo taliyayaashoodaba shaqada ay qabteen. وانا رجينا ان شاء الله ان ادكيسنا u baahanahay taariikh ma rabnaa inaan ka turjino sida daraadeed adkaysi waa inooga baahan yahay aad baad u mahadsantiin. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo ay tahay markii ugu horeysay uu booqdo dugsigani ayaa amaanay ciidanka waxa uuna sheegay in ay la ciidayaan isagoo si gaar ah u soo hadal qaaday ciidanka oo iskugu jira rag iyo dumar. runtii aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan idinku imaado idinku soo ziyaarto idinkoo ku jira tababarkii oo dhammaystiranaya tababarkii ilaahay idinkii marka dambe idin imaadno waxaan arki doonaa idinkoo uniformkiina idin wada dhammaystiran yahay oo qalabkiina haysta taasaan insha Allah taala aan ku rajo weynahay inay timaado. waxa kale aan ku faraxsanahay halka waxaan ka arkaa in ay isugu jiraan ciidanku rag iyo dumar ba isugu jiraan waana arrin maxaa la yiraahdaa imaka daahirad cusub oo inay dumarkuna ka qayb qaataan ciidamada marka iyagana waxa leenahay si gaar ah hambaliyo inaad ka qayb qaateen oo ku soo dhiiriteen inaad intaas oo nin ku dhex jirtaan iyada lafteeda wax hawl yar ahayn marka hambaliyo marka inta laga yimaado kulleyba waxa iska jirta ciidi dabadeed inteedii dambe weeyaan marka maadaama ciidi shawaalkuna waa tan noo soo dhow maadaama aanan ka soo gaarin ciidii hore ciid alfitrigi waxaan isleenahay ciidda shawaalka aad kula ciidaan marka wax badan ma aha laakiin waxa siruun maalinta ciidda aad kala qayb qaadatid ciidanka in laydii qabanay inuu wixii geeli laydii qabo ayaan insha Allah taala marka anigoo taliyaha iyo taliyihiina intaba ayaan u dhiibi doonaa marka intaas uma rabeen inaan soo arko intaana insha Allah taala idinku soo gaarsiino marka aad iyo aad baad u mahadsantiin. waad ogtiin hawsha inoo taala hawl badan baa inoo taala dalka waxa loo baahan yahay in maxaa la yiraahdaa amnigiisa la sugo dadka sugi doonana idinka kamida marka waxaan idinku dhiirinayaa inaad saa ula socotaan dalku waa dalkeeni dadku waa dadkeeni taasana wada shaqeynayna. wafdiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya oo shalay soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa madaxda Jubbaland la qaatay kulamo looga hadlayay dejinta siyaasadda amniga qaranka dalka.